kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanayno xildhibaanka laga soo doorto Garissa Township ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya. xildhibaanku sidoo kale waxa uu yahay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya. horeyna waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha ee dalkani Kenya. xildhibaan waa xildhibaan Aadan Barre Ducaale ku soo dhaw marka hore Home Cable TV. waan kaaga mahad celinaynaa oo waqtigaada ee qaaliga ah. su-aasha ugu horeyso aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa arrimaha siyaasadda ee dalkani Kenya. bismillaahi raxmaani raxiim. dalka Kenya waa dal aan dhihi karno arrimaha dimuqraasiga iyo doorashooyinka zaid horumareen egi loo fiiriyo wadamada jiraanka iyo Afrika. muddo hadda laga joogo 5 bilood waxaan soo marnay doorashadii ugu horeysay oo dhacdo markii dastuur cusub wadankan la helay sanadkii 2010 doorashadaas waxay uga duunay doorashada kale waa doorashada ugu horeysay oo dawlad goboleed wadanka Kenya laga hirgeliyay ama federal system of government. waa doorashadii ugu horeysay oo dastuur cusub lagu qabto oo systemka governance-ka wadankan completely uu isbedelay. waqtigii hore waxaan ku dhisnay siyaasi ku dhisan systemka dawladda Ingiriiska oo la yiraahdo Westminster model. hadda laakiin wadanka Kenya doorashadan waxay fursad siisay inaan systemka Mareykanka oo la yiraahdo presidential system inuu la hirgeliyo. marka doorashada waxay dhacday bishii 3aad waxa isku hayay laba coalition ama isbahaysi ani aan ku jiray oo la yiraahdo Jubilee coalition iyo isbahaysi kale oo nala tartamay oo la yiraahdo Code coalition. waan ku guuleysanay xagga madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa la doortay. waan ku guuleysanay xagga dawlad goboleedka badi waxay ka imaadeen Jubilee coalition. aqalka baarlamaanka aan hogaamiyo oo ka kooban 349 xildhibaan. coalitionka Jubilee oo aan hogaamiyo waxay ku leedahay 216. soo taqriiban ilaa 70 iyo dhowr xildhibaan ayaan ka badanahay isbahaysiga kale oo mucaaradka oo leh ilaa 133 xildhibaan. aqalka sanadka oo markii ugu horeysay wadankan laga aasay. aqalka sanadka wuxuu jiray dawladdii ugu hore oo aaska wadankan xornimada la helay uu jiray. laakiin waxaa dhacday in 4 sano ka bacdi markii gobonimada la helay in wadankan aqalkii sanadka laga takhlusay ama la baabi'iyay. hadda dib ayaa loo soo celiyay. soo waxaa jira baarlamaanka wadanka Kenya wuxuu ka qaybsan yahay baarlamaanka wadaniga oo National Assembly oo madaxda u ah iyo baarlamaanka sanadka. baarlamaanka sanadkana isbahaysiga aan anigu ku jiro waxaan leenahay dhowr iyo 39 senators markii loo fiiriyo 60 iyo labada senator uu ka qaybin yahay. marka waa system cusub waa system nidaam oo hadda cusub oo wadanka Kenya jiro. kursiga aan baarlamaanka hayo aan u weeyahay isbahaysiga Jubilee waa kursi ku dhisan sharciga ama dastuurka wadanka Kenya article-ka 108 oo tusayso inuu jiri doono hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka wadanka Kenya. waxaa kaloo jiri doona luqadda Ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa majority leader. wadanka Mareykanka way ka jirtaa laakiin isfadadkay u fahmaan mar hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka wuxuu ku saleysan yahay isbahaysiga ama xisbiga oo ugu tiro badan baarlamaanka. marka mar waxaad dhici kartaa in dawladda ay dadka ku guuleyso dawladda ay xildhibaanadooda ay yar yihiin baarlamaanka
hadda tusaale sida waddanka Mareykanka gudoomiyaha aqlabiyadda Congress-ka wuxuu ka imaaday xisbiga Republican-ka xisbiga madaxweyne Obama uu hogaamiyo uu ku tiro yar yahay Congress-ka iyo aqalka House of Representatives marka annaka waa ilaahay mahad leh dawladdii annaka ayaa madax ka ah baarlamaanka iyo senadkana annaka ayaa ugu tiro badan sida ayaan hadda aan ku helnay kuraasada aan kursiga hadda aan madaxda ka yahay waa tahay xildhibaan xilkan hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka dalka Kenya awood ahaan intuu gaarsiisan yahay waa xil adag waa xil waa kursi awood fara badan leh egaad u fiiriso systemkii hore oo aan ka soo guurnay waddanka Kenya oo ku salaysnaa nidaamka dawladaha Commonwealth ama Ingiriiska wasiirada iyo dawladda baarlamaanka ay ku jireen laakiin systemkan baarlamaanka iyo dawladda iyo judiciary-ga saddexdaba waxay yihiin independent marka madaxweynaha baarlamaanka ma joogo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka ma imaanayo golaha wasiirada baarlamaanka ma imaanayo attorney generalka baarlamaanka ma imaanayo marka ninka generalka dawladda hogaaminayo baarlamaanka ninka isku keenayo madaxweynaha wuxuu rabo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu rabo golaha wasiirada arrimahooda baarlamaanka waani marka arrimaha khasuusan sharci bedelka iyo arrimaha baarlamaanka ama dhaqaalaha miisaaniyadda dawladda haato ninka leader u ah baarlamaanka joogo marka waxa weeye waa kursi ama xafiis ama mas-uuliyad waxa weeyo xoog culus waa mas-uuliyad arrimaha dawladda hadday noqoto sharci hadday noqoto dawladda u hadal hadday rabto dawladda difaac hadday rabto dawladda generalkeeda baarlamaanka keen qofka waa kasta madaxweynaha la rabo inuu la tashado marka waa kursi ku salaysan dastuurka waddanka waa kursi generalka dawladda la rabo in laga fuliyo waa kursi la rabo afayeenka dawladda baarlamaanka afayeenka isbahaysiga baarlamaanka kursi waxaa weeye ama hadda waxaa la rabaa inaan isku habeeyo 216 xildhibaanka generalkooda siyaasigooda muhiimadda kaloo weyn aan rabo dadkan aan sheego waxaa weeye aqalka baarlamaanka waqti kasta uu fariisto maalinta talaadada arbacada khamiista arrimaha uu ka xaajoonayo waa inay noqoto waa in laga soo kariyo xafiiskayga waa inuu waqti kasta uu keeno generalka dawladda iyo generalka isbahaysiga sidii uu ahaan lahaa marka haddii la waayo wax lagu discuss gareeyo aqalka baarlamaanka mas-uuliyadda haddana anay ugu soo noqonaysaa marka waa markii ugu horreysay alxamdulilah ilaahay ayaan barnay waxaa tusaale ku soo qaadanayo madaxweynaha hadda golaha wasiirada uu magacaabi laakiin waa in lagu ansixiyo baarlamaanka marka waa inaan baarlamaanka horgeeyo waa inaan siduu madaxweynaha uu rabo iyo dawladda ay rabto waa inay noqoto waa inaan xogayaha joogtada hadda waxaan sugayaa in la keeno dadka laga rabo inay noqdaan safiirada waddanka wadamada dibadda awal madaxweynaha wasiir intuu magacaabo beri shaqada uu bilaabay wuxuu magacaabay xogayaha joogtada beri shaqada uu bilaabay wuxuu magacaabay safiir beri buu shaqada bilaabay hadda arrimahaas ma jiraan madaxweynaha wuxuu ku sameeyay waxa la yiraahdo nomination sida Mareykanka laakiin ansixista ah golaha wasiirada safiirinta waddanka shaqooyinka weyn dawladda hatta maaliyadda miisaaniyadda dawladda waxaas kala baarlamaanka marka budgetka madaxweynaha iyo dawladda waa inay marka arrimahaas kudi waxay soo marayaan xafiiska aqlabiyadda hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waa tahay xildhibaan xilkan sidaa sheegtay waa xil culus waxyaabo badan iyo dabcan xambaarsan yahay
sidee kugu suurta gashay marka dad badan ayaa isweydiinaya oo na daawanaya xildhibaan aadan bare ducaale oo Soomaali ah sidee ugu suurta gashay inuu noqdo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya waa su'aal fiican qayb weyn ayaan ka qaatay horta ani shakhsiyan abaabulkii iyo dhismadii iyo egaad fiiriso isbahaysiga Jubilee dadka qolob ay fiirinaya wadankan u dhashay iyo dibadaba ani iyo mudane William Ruto waxaan ka soo jeednaa mid ka mid ah labada xisbi oo dhiseen isbahaysiga Jubilee isbahaysiga Jubilee waxa isku imaadeen labada xisbi principal parties la yiraahdo xisbiga United Republican Party iyo xisbiga the National Party oo madaxweyne Uhuru Kenyatta marka agreement-ka eegan isku keenay labada xisbi oo isbahaysiga aan sameeynay aniga madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka imaanay xisbigii hore oo ODM dawladda ayaan soo dhisnay doorashadii hore wasiiraan ka ahayn waan isgafnay waan kala tagnay xisbi ayaan abaabulnay xisbiga anaga maanta baarlamaanka wadanka Kenya wuxuu ku leeyahay taqriiban ilaa 7 iyo 80 xildhibaan marka egi isbahaysiga coalitionka la sameynayay kuraasta dawladda waan qaybsanay oo agreement aan qaybsanay madaxweynaha wadanka inuu ka imaado xisbiga TNA madaxweynaha ku-xigeenka inuu ka imaado xisbiga URP hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya inuu ka imaado xisbiga anaga marka maadaama aan ahaa ninkii ku xogay madaxweynaha Soomaalida waxay ahdaa rikasta shaalka isrisaa lagu qalaa marka 3 sano 4 sano ayaan ka soo shaqeynayay risk fara badan ayaan u galay kursigii wasiirnimada ayaa laga bixiyay xisbi ayaan bilawnay baarlamaanka Kenya 2 sano u dambeysay baarlamaanka soo dhaafnay mucaaradan ahayn marka waan ka soo shaqeynay siyaasi ahaan inaan dadka anaga isku abaabulno inaan dadka anaga dhisno inaan xisbiga anaga dhisno siyaasiga waxa weeye waxaan meel ku gaari marka vision leedahay marka xisbiga URP-na waxa isku keenay wixii xoolo dhaqata ee wadankan ee ku nool marka maanta alxamdulillah Soomaalida aan ka soo jeedo iyo muslimiinta khaasatan Soomaalida 18 kursi ayay ku leeyihiin gobolka Waqooyi Bari 18 xildhibaan 12 xildhibaan waxay ku soo galeen xisbiga URP xisbi waxay xoolo dhaqatada iska leedahay igaad fiiriso dadka xoolo dhaqatada ka soo jeedo Soomaalida Booranta Turkaanada Masaayda xisbiga ay saldhig ku leeyihiin waa xisbiga URP marka kursiga maanta aan ku fadhiyo waa kursi aan ka soo shaqeeyay waa kursi aan buurir fara badan aan usoo marnay habeeno badan aan usoo dhaxnay dadkii dhegeysan xarab aan u sheego sanadkii 2012 waxaan u malaynayaa boqolkiiba 80 gurigeyga ma barin magaalo ama tuulo wadankan aan marin ma laho intaas marka xilkan aad raadinaysa waxaan raadinayaa horta inaan dawlad dhisno dawladdaasna ay noqoto dawlad annaga aan hogaamino dawlad dadka annaga ay ka faa'iidaan shacabkana ay ka faa'iidaan bulshada ay ka faa'iidaan Soomaalida wax badan wadankan waxay ahayd shacabka ay tumayeen marka shacabka ninka saarka tumo iyo ninka ciyaaro way kala fadli badan yihiin marka waxaan damacnay inay Soomaalida ay qayb ka qaadato markii raashinka dabka la shidayo oo dawlad lagu dhisayo oo markii dawlad la dhiso ayaan dawladda wax ka raadsan jirnay laakiin waan fikiray waxa arkay Soomaalida waa inay dawladda markii la dhisayo waa inay qayb ka qaadato oo dawladda ay meel ka yeelato guriga markii la dhisayo hadduu nin uu qofna uu keenay dhagax lagu dhisayay qofna uu keenay baatiga lagu dhisayay qofkaas share ayuu ku leeyahay marka dawladda Jubilee ilaahay mahad leh Soomaalida
iyo muslimiinta waddankan share ayaan ku leenahay maantana kursi lagu qiyaasi karo kursiga saddexaad waddanka Kenya ayaan marka ugu horeysay Soomaalida maanta kursiga kelimuhu maanta Supreme Court ka waddanka 7 qof fadhida wiil Soomaaliya ku jira maxkamadaha u sare waddankan maanta wiil Soomaaliya ku jiraan ninka doorashada maanta waddanka u weyn Uhuru Kenyatta doorashada certificate-kiisa bixinay waa wiil Soomaaliya Soomaalida maanta waxay ka muuqataa dhaqaalaha waddankan shidaalka igaad fiiriso kambuuniyaasha ugu fiican waddankan Soomaali baa iska leh marka Soomaalida waddankan boqolkiiba waxaan nahay 4% laakiin boqolkiiba 25 ayaa Soomaalida ay jagooyinkeeda ay leedahay marka Soomaalida waddanka way dadaashay bangiyaan leenahay jaamacadaha waddankan iga hadda aad tagto boqolkiiba waxaad dhigi kartaa 30 ardayda dhigtaan wiilasha gabdhaha dhigtaan waa Soomaali waxaana natiijo aan sugayaa 15 sano 20 sano hadda ka bacdi inay Soomaalida waddankan ay professionally ay waddanka la wareegaan maanta bangiga Barclays Bank ninka ugu sareeya ninka ku xigo waa Soomaali marka alxamdulillah Soomaalida dadaal ay sameeyeen dadaalka ay sameeyeenna waxaa la rabaa in lagu kaba siyaasiga marka anaka siyaasiga ayaan waynaa watahay mudane waxaa jira yani marka laga hadlayo countiyada gobolka ee dalkan Kenya 47 county gobolka waqooyi bari waxa uu kamid yahay countiyada lagu tilmaamay in la gacan bidixay maadaama aad sheegtay Soomaalidu inay meelo wanaagsan ka taagan tahay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dalkan Kenya maxay tahay sababta mar walba loo yiraahdo gobolka waqooyi bari horumar ahaan waa la gacan bidixaya dawladii saddex dawlad oo ka horeysay dawladii Kenyatta dawladii Moi iyo dawladii Kibaki way gacan bidixiyeen gobolka waqooyi bari siday u gacan bidixiyeen dhulasha Soomaalida iyo xoolo dhaqatada ay ka imaadaan dawladana aad bay leedahay dawladahaas aad badan bay leeyihiin aad kalena waxaa iskale dadkii marka waqtigaas hoggaanka hayay Soomaalidii gobolka waqooyi bari waqtigii hoggaanka hayay Soomaalida waxay soo martay wasiirada Soomaaliyeed xildhibaanada Soomaaliyeed marka waxaa la rabaa nin kasta markuu hoggaanka hayo oo miiska uu soo fariisto waa inuu miiska qaybta qusaysa dadkiisa waa inuu u dagaalo marka dadkii madaxda soo ahaa waqtiga badan waxaa dhici kartaa dadaal badanna way sameeyeen tilaabo fara badanna way gaabiyeen laakiin hadda muhiimadda waxaa weeye lagama hadlo taariikhyaha dambe muhiimadda waxaa laga hadlaa wixii hadda joogo hadda waddanka Kenya markii ugu horeysay wuxuu qabaa waxay dowlad goboleedka Soomaalida ay degaan waxaa weeye 3 waa Wajeer iyo Mandera iyo Garissa lacag gaaray hadda ilaa taqriiban 15 bilyan ayaa gobolka hadda la geeyay oo la rabaa inay ayaka dadka meesha degan ay ismaamulaan waxay doorteen governors iyo madax oo dowlad goboleedka raba inay maamulaan horta waxaan ilaahay ka baryaynaa inay dowlad goboleedkaas ay ku maamulaan si xaq iyo si cadaalad ay ku maamulin sidii Soomaalida lagu aqaan jiray arrin qabiil ah waxaa rabnaa qabiilka yar iyo qabiilka weyn iyo masaakiinta iyo kuwa tujaariinta iyo diinta inay ku ka faa'iidaan dowlad goboleedka oo hadda waxaa la fiirin doonaa dowlad goboleed yana loo ogolaaday xoolihii baa la keenay dhaqaalihii baa la keenay maamulkii baa la soo dejiyay sideen anaka isku maamuli doonaa horta maxaa rabaa inaan anaka ismaamulno oo wadooyinkii iyo arrimihii biyaha iyo caafimaadka iyo iskooladii inaan horta anaka dowlad goboleed ahaan isku maamulno ani iyo ragga kale oo jooga dowladda nationalkana waxaa la rabaa inaan dowladda nationalka ay gobolka hormariso ani horaan waan sheegay arrimo muhiim ayaan rabnaa inay 5 sano oo dowladda Uhuru Kenyatta iyo Jubilee waxaan rabnaa inay noqdaan 5 sano oo ka fiican 50 sano aan soo dhaafnay waxaan isku daynaa wadada Garissa ilaa Mandera inay 5 sano la dhiso arrimi aan ka soo hadalnay markaan joognay
waddanka shiinahana arrimahaasa kamid aha in bangiyada shiinaha iyo dowladda kenya ay iska kaashadaan sida waddada loo dhisi lahaa hadda waddada gaaris iyo magaalada madoogaashe lacagteeda waa lasoo helay insha allah waxaa lagu tala jiraa ilaa bisha 12 in waddada la bilaabo midda labaad arrimaha ku saabsan korontada waddankan 50 sano wali may gaarin gobolka waqooyi bari hadda laakiin waxaa rabaa inaan sheego national grid korontada Nairobi iyo magaalada Garissa waa isku xirnaa World Bank ayaa lacagta maalgelin bixinaya way socotaa laakiin dawladda Shiinaha waxaan ka soo faa'iidnay inay maamul lacag bixisay oo markii ugu horeysay hadda laga bilaabayo 2 bilood gudahooda solar project oo la rabay inay 50 megawatts oo koronto ah inay keento gobolka waqooyi bari oo 50 megawatts ka digi la helo korontadaas way ku filan tahay gobolka waqooyi bari haddii korontada la hormariyo waxa bilaabi warshad meel ma tagayso haddii koronto ay jirin marka waxaan rabnaa in korontada iyo isgaarsiinta iyo xanaanada xoolaha iyo wabiyada Garissa iyo Mandera irrigation inaan bilaawno sifa dhaqaalaha xagga xoolaha xagga raashinka xagga tacliinta xagga wadooyinka iyo xagga korontada ay hormaraan Soomaalida waa dad waxa weeye dadaal badan wadada loo dhiso ganacsi ay ku nool yihiin wadankooda ay ka hormarnayeen marka 5 sano dawladda national kuna fiirnayna dawlad goboleedkana waxaan ka baryaynaa waliba waxaan rabaa inaan la hadlo ragga mas'uuliyadda loo dhiibay waa inay dawlad goboleedkaas ay shacabka ka faa'iidaan waa inay shacabka si cadaalad loo dhiso muhiimadda weyna dawlad goboleedkaas waxaan rabnaa inay diinta hormariso inay madaarista iyo dugsiyada iyo masaajidka haddii diinta la hormariyo haddii siyaasiga iyo bulshada iyo dhaqaalaha haddii diinta lagu kabo faa'iido la gaari waxaan u leeyahay ani siyaasiga 5 sano iyo hadda waxaan ku soo dhisay diinta marka diinta waa muhiim inaan hormarin iyana waxaa jira gudoomiyaasha gobolada ee ismaamul goboleedyada hadda aad ka dhawaajinayso waxaa jira lacag ay u qoondaysay dawladda Jubilee oo ah 15% taa waa ay ka caawdeen oo cabashay ka soo jeediyeen waxayna yiraahdeen yani waxaan ka jeclaanay in looga dhigo 40% maxay dawladda Jubilee u hortaagan tahay lacagtaasi in ay u kordhiso governorada maadaama ay howl badan hortaalo horta waxaan rabaa inaan wax aan saxo dawladda Jubilee 15% ma qoondeynin 15 waxaa lagu qoondeeyay dastuurka wadankan wuxuu qorayaa haddaad fiirso chapterka devolution wuxuu qorayaa dawlad goboleedka waa in la siiyo minimum 15% 15 lagama hoos marin karo dawladda Jubilee sanadkan miisaaniyadda sanadkan waxay u qoondeysay 34% inaan saxaan rabaa horta maadaama miisaaniyadda wadanka ay soo marto baarlamaanka xafiiska soo marto 34% ayay u qoondeysay laakiin soo ma jirto dakhliga qaranka in lagu qoondeeyo 15% dakhliga qaranka sidii dastuurka iyo sharciga wadankan u degan waxaa loo qoondeeyay 34 dakhliga wadankan iyo dastuurka wuxuu qorayaa in waxa la yiraahdaa Public Finance Management Act iyo dastuurka wadankan egaad fiiriso wuxuu leeyahay 15% waa in loo qoondeeyo markii la fiiriyo sanadkii aan soo dhaafnay audited accounts arrimana waa arrimo sharciyan haddii la rabo in la bedelo waa arrimo haddana dadka wadankan loo geeyay marka dawladda Jubilee waxay u qoondeysay 34% manifestoga Jubilee waxaa ku jirtay inay u qoondeyn doonto 5 sano gudaheeda 40%. hadda waxaan u qoondeynay 34%. sanadka dambe miisaaniyadda la akhrinayo dawladda Jubilee waxay dhici kartaa inay u qoondeyso 45%. kooxda kale oo coalition oo ninkii ahaan jiray ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo manifestogooda hatta waxba kama sheegin xalana television kale waad fiirinaysay
waxaan rabaa ra-iisul wasaarihi hore inuu dadka waddanka Kenya indhaha ka fiiriyo una noo sheego coalitionkiisa manifestogooda maxaa lagu qoray dowlad goboleed. midda labaad boqolkiiba 34 dastuurka waddanka wuxuu qorayaa dowlad goboleed iyo dowladda sare labadaba waxay u shaqeynayaan shacabka waddankan. arrimaha la rabo dowlad goboleedka inay fuliso iyo arrimaha la rabo inay dowladdan nationalka ay fuliso waxay ku qoran yihiin dastuurka. waxaa lagu yidhahdaa the fourth schedule of the constitution ku taala 14 function ay dowlad goboleedka leedahay. tusaale haddaan kusoo qaado tacliinta kale dowlad goboleedka arrimaheeda kuma jirto iskoolada dhexe iyo iskoolada sare iyo jaamacadaha. dowlad goboleedka arrimaheeda kuma jiro wadada Garis iyo Nairobi iyo Mandera isku xirayso. marka agii dastuurka la sameynay dowlad goboleedka iyo dowlad nationalka lacag ahaan iyo mas'uuliyad ahaan waa loo kala qoondiyay. marka dadka hadda le referendum aan qaadno waxaa dad rabaan inay siyaasi isticmaalaan laakiin referendumka waxa weeye waa arrin dastuuriye waa arrin sharciyan waa arrin nin kasta uu sameynayo laakiin waa arrin haddana sidii loo qaadi lahaa dastuurka lagu qoray. arrimaha referendumka waa inay imaadaan baarlamaanka waa inay tagaan baarlamaanka dowlad goboleedka waa arrin rab inuu waa arrin qaadan kara ilaa 4 sano. waa tahay governorada iyo senatorada labadu waxay u ololeynayaan in dastuurka qodobo kamid laga bedelo waliba waxaa sidoo kale garab taagan isbahaysigii koodre oo hogaaminaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalkani Kenya Raila Odinga. qodobadaasi waa qodobo taabanaya awoodaha senatorada iyo awoodaha governorada. dowladda Jubilee way ka hadashay madaxweyne ku-xigeenka ka hadlay waxa uu sheegay xilligan inaysan ahayn xilli ku haboon in qodobo dastuurka in la bedelo loo ololeeyo. qodobada haddii awoodaha ay u kordhinayso in ay u ololeeyaan oo wax laga bedelo maxaa diidaya oo hortaagan. haddana waxaa ku noqonaya dastuurka dadka Kenya dadka waddankan Kenya 2010 waxay u ololeeyeen inay dastuur cusub waddankan ka helaan. waddanka Kenya taqriiban 20 sano ayaa la raadinayay dastuur cusub. dastuurkaas 2010 ayay cod u bixiyeen oo referendum ayay u aadeen. dadka Kenya ayaa awoodda qaybiyay waqtigaas waxay yiraahdeen awoodda madaxweynaha intan bay ahaan awoodda maxkamadaha waddankan intan qiyaastan bay noqon awoodda baarlamaanka Kenya qiyaastan noqon awoodda baarlamaanka Senate intan noqon. qodobka 95 ee dastuurka waddankan article 95 ayaa ka sheekeynaya awoodda baarlamaanka Kenya kan aan hogaamiyo. qodobka 96 ninkii dastuurka akhrinaya Constitution Kenya wuxuu ka sheekeynaya awoodda uu iska leeyahay baarlamaanka sanadka. awoodda madaxweynaha iyadana chapter idil ayay ka sheekeynaysaa. awoodda maxkamadaha waddanka Kenya awood ayay ekna leeyihiin. guddi waxaan awoodda waa la qaybiyay. dowlad goboleed awooddeeda dastuurka waddankan ayay waxaana qaybiyay shacabka waddanka qaybiyay. arrin maanta baarlamaanka Kenya uu rabo inuu awood iska kordhisana ma jirto. intan awoodda la qaybiyay shacabka uu qaybiyay nin awood kordhisan kara ma laho. awoodda haddaad rabto inaad kordhiso waad in haddana shacabka ku noqoto. shacabka inaad ku noqoto. in yarna waxaa inaan sheego dastuurka waddanka Kenya 20 sano raadinayay waxaad keenay 2 arrin. arrin wuxuu ahaa dowladda Kenya dowladda Kenyatta dowladda Moi dowladda Kibaki waxay ahaayeen dowladda madaxweynaha awood fara badan uu leeyahay. madaxweynaha hata qof wuxuu dhijir hal dilo madaxweynaha wuxuu bixin jiray dhul. marka dadka Kenya waxay yiraahdeen awoodda madaxweynaha waa in la dhimo. awoodda madaxweynaha waa la dhimay waxaa lagu dhimay awooddiisa qayb waxaa la siiyay baarlamaanka Kenya. maanta madaxweynaha waxaa la yiri golaha wasiirada waa magacaabi laakiin baarlamaanka aan sixin.
awoodii madaxweynaha nus waxaa la siiyey baarlamaanka, awoodii madaxweynaha nus waxaa la siiyey dowlad goboleedka, awoodii madaxweynaha nus waxaa la siiyey baarlamaanka sanadka, nusna waxaa la siiyey maxkamadaha. marka siyaasiyiinta wadanka ama sanadka ahaadaan ama governorska ahaadaan ama baarlamaanka aan hogaamiye ahaadaan ma dhihi karaan waagii ugu bari intaad soo kacda ma dhihi kartid awoodda halii kordhiyo. awoodda haddii la raba in la kordhiyo ama la bedelo nidaamkii lagu bedeli lahaa haddana dastuurka wadanka ayay ku taallaa. marka taana dowladda Jubilee ma diidano, laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego ugu dambeyn senatorska ka soo jeeda Jubilee, governorska ka soo jeeda Jubilee, xildhibaaniinta 216 ka soo jeedaan Jubilee oo aan hogaamiyo iyo dowlad goboleedka ka soo jeedaan Jubilee, anaka hal cod aan ku hadlaynaa. dowladda Jubilee waa mid midaysan, madaxweynaha, aniga baarlamaanka xukumo, senatorska, governorska, MPyasha waxaan rabnaa inaan hadda hirgelino ballanqaadkii aan sameyn. annaka hal ku dhigta Jubilee waxay ahayd haddaan Soomaali ku sheego qowl iyo qabasho. annaka qowl waan soo dhaafnay, hadda waxaan rabnaa qabano qabasho. maxaad qabateen hadda intii aad jirteen? su-aal fiican waayo. annaka waxaan dhahnay waxaan dhisaynaa railway line-ka Mombasa ilaa iyo Kampala ilaa iyo Kigali, sifa dhaqaalaha Kenya iyo dhaqaalaha wadanka jiraanka nala inaan kor u qaadno. maanta waxaan kuu sheegi rabaa lacagtii wadanka Kenya iyo dowladda Shiina muddo 2 bilood gudaheeda railwayga waa la bilaabay. waxaan ballan qaadnay in hooyooyinka markay tagaan isbitaalada ay ku soo umulayiin in waxba laga qaadin. maanta hooyo kasta meel ay joogto markay foosha qabato waxay tagi isbitaalka u dhow, shil lagama qaadan jiro. dowladda waxay bixin jireen 2,000 3,000. maanta maadaama aan rabnay inaan waxaan ballan qaadnay inaan caruurta wadanka Kenya ay ku soo koraan casri technology oo IT bisha ana ma su'aal weydiisay maxaad qabateen waa inaan sheego waxaan qaban. marka ugu horeysay bisha 12aad ama sanadka dambe January cunug kasta oo wadankan oo iskoolka hoose dhigto waxaa loo iibinayaa computer. caruurtaanada ma qaadi doonaan access book iyo pencil. caruurtaan waxaa rabaa in wax lagu baro maadaama cunuga murana ka jira Soomaaliya computerada inaad siisaan caruurta dugsiyada hoose. muran kama jiro. hadda dowladda wadanka xukunto oo miisaaniyadda iska leh waa dowladda Jubilee. baarlamaanka Kenya wuu mariyay, waa la hirgelin karaa. muran oo shir jaraa'id muran oo lagu qabtay shir xalfad ama meel tacziya, taas muran lama dhaho. waxaa la rabaa baarlamaanka Kenya ma ansixiyey markuu miisaaniyadda dowladda ansixinayay arrimaha dowladda inay filiso ay rabto. arrimihii laptop project baarlamaanka Kenya wuu ansixiyey, lacag gaaraysa 17 bilyan oo Kenya loogu talagalay ayaa la sameynaya. caruurtaana laptop qaadanayn. waxaan ballan qaadnay inaan 1 milyan oo ekar oo wadankan inaan irrigation saari doono. lacagtii loo maalgeliyey 25 bilyan Kenya way bixisay, inta kalena dowladda Shiinaha bixisay. waxaan ballan qaadnay inaan wadankan ay jiri doonin dad shacab oo wadankan u dhashay oo dhul lahayn oo meel ay degan yihiin lahayn. waad aragtay 3 bir haddaan soo dhaafnay ilaa maalinta berri madaxweynaha wadankan wuxuu bixinayaa title deeds. 50 sano madaxweyne Kenyatta, Moi iyo Kibaki iyo ra'iisul wasaarihi waliba wasiirka dhulka uu ka imaaday isbahaysigiisa. wadanka Kenya hadda Nairobi soo ma tegin xajaan xaafada ay dadka yihiin islaam saliida Soomaa. wadankan waa inay dad kala dejiyo. marka manifestoga Jubilee 4 bilood gudaheeda laguma hirgelin karo. manifestoga Jubilee waxaa lagu hirgelinay 5 sano. waa in lacag loo qoondeeyo. waxaan su'aal kale ku weydiiyo xildhibaane dabcan qaybihii dambe waraysiga ayaynu soo gaarnay. xildhibaanada Soomaalida iyo guud ahaan mas'uuliyiinta Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari waxaa lagu eedeeyaa inaysan gobolka booqanin oo ay tagaan kaliya markii ayagu ay dana gaar leeyihiin oo aysan ka warqabin. arrintaas maxaa ka leedahay? horta xildhibaaninta gobolka Waqooyi Bari ani uma hadli kari. su-aashan waxaa la rabaa in la weydiiyo aadan bare ducaale xildhibaanka laga soo doortay magaalada Gaarisa. adi ma tagtaa meesha? ma rabin inaan u hadlo xildhibaaninta aan ani hogaamiyo. su-aalahaas waxay ku fiican tahay inay ayaga jawaabaan ama dadka soo doorteen.
mas-uuliyaddana horaan oo u sheegay maanta xildhibaan kasta 5 sano lasoo doortay waa inuu dadkiisa iyo diintiisa iyo gobolkiisa awalan u shaqeeyo waa inuu tacliinta iyo biyaha iyo caafimaadka iyo diinta horumariyo hadduu horumarin waayo 5 sano waa 5 habeen dadka shacabka ayuu ku noqonaya dadka ay fiirinayaan waxaan rabaa inaan ogaado u sheego xildhibaaniinta iyo siyaasiga yaa lagu dhisin qabiil yaa lagu dhisin reer hebel waa in lagu dhiso karti xildhibaaniintana waxaan dhihi lahaa mas-uuliye ayaa idin saaran oo hataa aakhira lagu weydiin doono waa in aad shacabkiina u hadashiin waa in shacabka aad codka kala akranin waa in codkaada aad shacabka siiso waa inaad xooggaada shacabka siiso waa inaad aqligaada shacabka siiso waa in shacabka ay habeen ay ku tabin marka waxaan dhihi lahaa haddee jirto xildhibaaniin gobolka aadaynin 5 bilood ay hadda xilka hayaan waa inay aadaan baarlamaanka Kenyana xildhibaaniinta wuxuu sameeyaa xoolo iyo dhaqaale ayuu siiyaa sifa ay ugu noqdaan gobolada laga soo doortay aad buu u mahadsan yahay xildhibaan aadan barre ducaale oo xildhibaanka laga soo doorto Garissa Township ee gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya isla markaana xildhibaanku waxa uu yahay hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka dalkani Kenya waan uga mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga iyo waraysigan aynu la yeelanay xildhibaanka aad baad mahadsantahay xildhibaan daawadayaal inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa waraysiga waxa idin qaadayay anigoo ah Xasan Sheekh Cumar dhinaca farsamada waa Cabdi Casiis iyo sidoo kale Cabdi Fataax Maxamed Cilmi tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo